aanu malaynayo in aad la idinku sharxay laakiin meeshaas waxa u baahan qodob baa u baahan in lagu baraarugo qodobkaasi wuxuu yahay fadliga xajka lagu sheegay iyo khayrka faraha badan marka aad ka helayso waa markaad u gudato fariidadaas sidii Allah u amray tabaaraka wa tacaala haddii aadan u gudanin sidii loogu talagalay xajkaagu kii ajirka laga heli lahaa maaha kii fadliga faraha badan lagu sheegayna maaha bal waxaa laga yaabaa inaad la soo noqoto wax la'aan iyo khasaare la soo noqoto waana ta keentay nabigeennu sallallahu alayhi wasallam inuu xajkiisii xajatul wadaac uu ku dul xajiyo acmaasha dhammaanteed ku guto ama badankeed isagoo hasha korkeeda saaran si ay dadku u wada arkaan leana dadka aad u badnaa si marka loo fiirsado oo looga qaato xajka iyo qaabkii loo gudan lahaa looga barto buu nabigu sallallahu alayhi wasallam hasha korkeeda acmaasha ku sameeyay isagoo saaran buu acmaasha gutay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalintii tobnaad khudbadu jeediyay waxaa ka mid ahaa inuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam khuduu cannii manaasikakum iga qaata manaasigtiinna iga barta maxaa yeelay waxaa dhici karta inaanan sanadkan kadib soo xajiyin nabiyullaahi ibraahimna calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo nebi ismaaciil calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markay kacbada dhisayeen waxyaalaha ilaahay weydiistaan waxaa ka mida wa arinaa manaasikana ilaahu manaasigtanada na tus oo na bar macnaheedu waxa weeye meesha waxaa ka muuqda hadduu ruuxu isagoon shaygii baranin oon dhagaysanin oon weydiinin oon iska hubinin waan xajinayaa yidhaahdo ama waan cumraysanayaa yidhaahdo waxay u badan tahay inuu wax la'aan soo noqdo keliya inuu tacab khasaaro dhibaatoodo kharash ka baxo taasi waxay adkaynaysaa marka inaad ku dadaasho inaad mar walba camalkaad samaynayso iska hubiso qaabkii loo samayn lahaa xajku marka waa fariido ka mida arkaanta waaweyn waana tiirka shanaad ee islaamnimadu ku taagan tahay waana laysku waafaqsan yahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam fi saxiixayn wa fi ghayri ma tilmaamaya aayadda quraankaana rabbi wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala walillaahi cala annaasi xijul beyti man istataaca ilayhi sabiila allah dadka korkooda wuxuu ku leeyahay xaj inay beydkiisa tagaan oo soo siyaartaan dadkoo dhan haddana kuma lehe wuxuu ku leeyahay ciddii kari karta jid ahaan oo jidka awoodi karta rag iyo dumar midku dooni ha ahaado fariidadaas axkaam fara badan oo ka horeysaa jirta laakiin maadaama waqtigu ugu yaryahay waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan axkaamta muhimka ah ee markii camalka la dhex galo oo ruuxu samaynayo ku saabsan taasaan jeclaa insha allahu tacaala inaan xoogga saaro ruuxu markuu go'aansado inuu xaj ama cumro aado waxaa loo baahan yahay inuu qabaysto waase markuu xarmanayo xidhanayo waa u tegi doonaa xataa haweeney caado qabtaba ha noqoto laakiin waxaan mari doonaa oon tilmaami doonaa hadda qaabka innaga oo kale iyo dadkayna la midka oo diyaaradaha ku tegaya marka la xarmanayo jaanisay ku qabaystaan ma hayaan oo marka la xidhanayo ilaana diyaaradda korkeedaa la saaran yahay sidaas daraaddeed qabayskaasi waa meesha waa ka baxaya leanna sunnuu ahaa duruuftuna ma saamaxayso marka muxuu ahaayey qodobka labaadi waxa weeye ruuxu wuxuu xidhanayaa hadduu rag yahay dhar cawradiisa asturaya oo aan ahayn dharka lagu tolay jidhka loo tolay ee xibnihiisa loo tolay waana dharka ay culimmadu u yaqaanaan almakhiid dharkaasoo dhan buu iska dhigayaa hadduu qamiis yahay hadduu shaati yahay hadduu sarwaal yahay markaa wuxuu ku bedelanayaa labadii go' ayuu xidhanayaa labada go' ama ha caddaadeen
waa sida fadliga badan ama midab kale ha yeesheen inay caddaadaan sharti maaha. kabaha xaggooda sidoo kale wuxuu xidhanayaa kabo aan aanqowgiisa daboolaynin, ama dacas ha noqdeen ama sandal ha noqdeen ama faraha hore iyo ha qariyeen, laakiin waa inay ka hooseeyaan aanqowga. mar haddaysan aanqowga qarinaynin kabahaasi waa la xidhan karaa. ayib, sidoo kaleeta wuxuu iska bixinayaa ninku wax kastoo madaxiisa daboola, koofiyadda iyo cimaamadda iyo waxyaalaha madaxa lagu asturo ayuu iska bixinayaa markuu doonayo inuu xarmado. haweenaydu iyadu dharkeeda ay xidhan tahay ay ku asturan tahay iyo xijaabkeeda wax ka mida iska bixin mayso. sideedaas ayay xajka ku xidhan ama cumrada ku xidhan. allaahumma haddii ay indhashareer qabto waxay siibaysaa indhashareerka. indhashareerkana waxaa la yidhaahdaa aan haweenayda xarman loo ogolayn midka ku dheggan wejiga, ama wejigoo dhan ha ku dheganaado ama indhuhu ha soo jeedeen. marba hadduu wejiga ku dheggan yahay waa indhashareer, kaasaan la ogolayn. laakiin waxaa loo ogol yahay inay mara soo dayso, intay madaxa ama fooda kore ka soo dayso ay markaasi wejiga korkiisa ku sii dayso iyadoo maradaasi ayna ku dheganayn wejiga. waxaa kaloo haweenayda ay iska bixinaysaa hadday qabto sidoo kale waxa loo yaqaano gloveska gacmaha la gashada iyagana lagu qariyo, ayadana way iska bixinaysaa. innaga meeshan markaan joogno wuxuu samaynayaa ruuxa doonaya inuu xajiyo ama uu cumraysto, dharkiisa aan hadda soo sheegnay oo labadii go-ah ayuu meeshan isagoo jooga wuu qabaysan, wuu isnadiifin. isagoo meeshan jooga waa sida u roon oo u sahlan ayaad labada go' xidhanaysa. waana sidii nebigu sameeyey sal lla lay wasalam. nebigu intuusan miiqaadka laga xarmanayo soo gaadhin ayuu labada go' soo xidhay. magaalada madiine markuu ka soo ambabaxayay labada go' wuu xidhnaa. marka sunnadu siday tahay dadkana u fudud waxa weeye diyaaraddaba markaad raacaysaba inaad dharkii iska dhigto caadiga ahaa oo labadaadii go' xidhan tahay oo diyaarsan tahay. sidaa waa sida kuu fudud. haddii kale waxaa kugu dhici doonta adoo diyaaradda saaran inaad u baahato dharka inaad bedelato, taasoo adkaan doonta hadhowto. marka sida kuu fudud sunnadana ah waxa weeyaan in aad muxuu ahaayey aad dharkaagii labadii go' sii xidhato wey. ayib, sidoo kale waxaa u fiican ruuxa intuusan xarmanin oo meeshii laga xidhanayay intaan la gaadhin inuu sidoo kale is-udgiyo cadar iyo barfuun iyo waxyaalaha ududgoon inuu isticmaalo jidhkiisa udgiyo. sidoo kale inuu jidhkiisa ka nadiifiyo waxyaalaha wasaqda, isnadiifiyo. maalan shaaruubta oo kale inuu iska gaabiyo, timaha maalan kilkiladoo kale sidoo kale inuu gooyo, timaha gumeerka ku yaalla xubinka taranka ka koreeya iyagana inuu iska xiiro, yacni inuu isnadiifiyo. ciddiyaha iska jaro si uusan hadhowta ugu baahanin isagoo xarman inuu waxyaabahaas gooyo, laanna xaaraan bay noqon doonaan markaad xarmato. waa u tegi doonaa. marka inuu isnadiifiyo kadibna diyaaradda marka la fuulo iyadoo la diyaarsan yahay insha allahu tacaala diyaaraddu markay ku dhowdahay magaalada Jidda oo magaalada laga dega ah oo ay u laaban tahay taqriiban diyaaradda dhowr iyo 20 daqiiqo sida badan, meeshii laga xarman lahaana ay 10 daqiiqo taqriiban u jirto, ayaa inta badan ogeysiis la bixinaya. luqadda carabiga inta badan ku baxaan diyaaradaha luqadda macnaha carabta oo la leeyahay meeshii laga xarman lahaa waxaan u jirnaa 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo kadib baan mari doonaa. ogeysiiskaasaa la bixin doonaa. sida qaalibka ah way sameeyaan. adiga marka waad isdiyaarin,
marka haddana miiqaadka korkiisa ay diyaaraddu ku aadan tahay meeshii laga xarman lahaa baa haddana mar labaad ogeysiis la bixiyaa oo la yidhaahdaa haddaan miiqaadkii ku aadanna markaasaa la rabaa marka inaad xarmato. culimmada qaarkood waxay leeyihiin waana sida saxda ah, diyaaraddu waxay ku socotaa sbiid aad u badan, xawaaraheeda xoog bay u socotaa. sidaas daraaddeed waxaa dhici karta markaa la iclaaminayaba inay miiqaadka dhaafto. sidaas daraaddeed waxaa fiican in markay miiqaadka ku soo dhowdahayba inaad xarmato, leanna waxaa la isla ogol yahay haddaad intaadan soo gaadhin xarmato sax wey, laakiin waxaa la diidan yahay adoon xarmanayn inaad dhaafto baa halisa. markaad ku soo dhowdahayba inaad iska xarmato way fiicanta. ayib, see loo xarmanayaa wey? xarmashada waxaa laga wadaa macnaheedu ma aha qalbigayga waxaa ku jira doonid iyo rabitaan xaj ama cumro, intaasi xarmasho maaha. laanna adoo meeshan fadhiya hadda intaasi qalbigaaga ku jirta. xarmashada waxaa la yidhaahdaa macnaheedu camalkaa qalbiga iyo carabkood kaga dhawaaqdo waxa aad rabto inaad samayso. maxaad rabtaa inaad samayso? ma xaj baad rabtaa? ma cumraad rabtaa? ma labadoodiioo isku dhex jiraad gudan rabtaa? waa u tegi doonaa tafsiilka qaabka ay u qaybsamaan iyo ruuxu midka uu ka dooranayo. laakiin meeshaa markaad joogto ayaa la rabaa inaad muxuu ahaayey ku dhawaaqdo. waxa aad ku dhawaaqi doontana insha allahu tacaala dib baan ka tilmaami doonaa. ayib, xajku marka waa cibaado ilaahay tabaaraka wa tacaala wakhtina u sameeyey, meel lagu gutana u sameeyey. wakhti la gutuu sameeyey waana midda ay culimmadu u yaqaanaan mawaaqiitu alxaj azamaniya la yidhaahdaa. waa wakhtiyada ilaahay xajka ugu talagalay ee zamanka. waa 3 bilood: bisha shawaal ee ramadaan ka dambaysa, bisha hadda aan ku jirnay dilqacda, iyo bishan soo socota ee dilxija. dhammaanteed ma ku wada jirtaa mise dhowr iyo 10ka beriyee hore? waa khilaaf bayn alculamaa. laakiin 3 bilood baa waxaa la yidhaahdaa ashhurulxaj. waana midda rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala alxaju ashhurun macluumaat. xajku waa bilo la yaqaano. macnaha maxaa laga wadaa? bilaha ka hor ama kadib haddaad xaj xidhato ma soconayo. waa in xajka xidhashadiisu uu bilaha dhexdooda galo. waa qodobka labaad, xajka xidhashadiisa meel walba lagama xidhan karee ilaahay sohdimuu u sameeyey, meelo khaasa bay shareecadu u samaysay oo nabiga axaadiista ku timi sal alla alay wasalam. dadka ama xajka dibadda kaga imaanaya ama magaalada maka dhexdeeda ka xajinaya ama agagaarkeeda ka xajinaya, ruux walba waxaa loo sameeyey meel iyo sohdin la rabo inuusan dhaafin asagoon xidhanin. sohdimaha marka waxaa la yidhaahdaa almawaaqiit almakaaniya la yidhaahdaa. waa meelaha ilaahay uu u sohdimeeyey in laga xidho xajkiiyo xumrada. waxaa la yidhaahdaa waa dhowr. reer madiina waxaa loo jideeyey meel dilxulayfa la yidhaahdo oo magaaladaba aan ka fogeyn inay ka xarmadaan. waana waxaa la yidhahdaa mawaaqiidda midka ugu fog maka ayaa la yidhaahdaa. miiqaadka labaad juxfa la yidhaahdaa. waxaa ka xarmada dadka ka yimaada shaam, suuriya, urdun, yacni filistiin, dadka ka yimaada iyo reer masar iyo reer madiina hadday jidkaa maraan ayaa loogu talagalay meeshaa markay marayaan inay ka xarmadaan. ayib, juxfa la yidhaahdaa. miiqaad weeye iyaduna, miiqaadka labaad wey. miiqaadka saddexaad hadda waxaa la yidhaahdaa waa mahjuura. juxfadaasi magaalay ahaan jirtay, laakiin nabiga sal alla alay wasalam baa ilaahay wuxuu weydiistay in qandhada ama xanuunka madiina iyada loo raro. wixii intaa ka dambeeyena waxaa la yidhahdaa magaalay ahaan jirta laakiin mahjuur bay noqotay, meel lama degaana way hadda. masaajid iyo meel laga xarmado basaa ku yaala. laakiin dadku in badan waxay hadda ka soo xarmadaan magaalada raabiq oo ka yara koraysa wax yar ayaa laga xarmadaa. miiqaadka saddexaad qarnulmanaasil baa la yidhaahdaa ama qarnu thacaalibna waa la dhahaa. isagana
reer najdi baa loogu talagalay inay ka xarmadaan. reer najdi waa kor iyo muxuu ahay riyaad iyo wixii xagga ka yimaad ayaa loogu talagalay. miiqaadka kale waxa weeye yalamlam baa la yidhaahdaa, asagana waa miiqaatu ahli lyaman, reer yaman miiqaadkooda waa macnaa waxaa laga wadaa reer yaman iyo wixii xaggooda ka yimaada. annaga marka waxaan ka jirnaa dhanka yaman baan jirnaa, koonfur baan jirnaa. miiqaadkeenna waa miiqaadka reer yamaneed iyo lamlam baa la yidhahdaa. marka miiqaadka kale daatu cirqin baa la yidhaahdaa, isagana xadiidkana waa ku sugan yahay, waxaa loogu talagalay reer ciraaq. meelahaas dadka degan iyo dadka soo maraya kor ka imaanaya ayaa sohdimo ay ka xarmadaan laga dhigay. xadiiska nabiga sal lla lay slam fi saxiixayn min xadiidi cabdillahi bni cabbaas ayaa macnaha tilmaamaya. waxaan haysanaa marka meesha laga xarmanayo ha dhaafin adoon xarmanin. xilligaad xarmanayseed xidhanaysana ha noqoto waqtigii bilihii loogu talagalay in la xarmado. ayib, waxaa imaanaysa marka oo ku xigta maxaan xarmadaa, maxaan xidhaa. xajka aan rabo inaan xidho waa noocee. taasi waxay keenaysaa inaan nidhaahno xajka ama qaabka loo xajiyo waa 3 nooc. saddexdaa mid ka mida in aad yacni ku tala gasho oo aad xidhato ood xarmato waa. saddexda midka koowaad waxaa la yidhahdaa tamatuc. tamatucana waxaa la yidhahdaa in aad cumro xidhato. cumraad xidhan markan horeed socoto, cumro keliyaad xidhan. waxaad leedahay labayka cumra, labayka cumra, alla waan ku ajiibay oo cumraan kugu ajiibay. cumro keliya. cumradaa markaad xidhato acmaasheeda waan sheegi doonaa. markaad gudato oo dhammaysato waad iska xalaaloobi, kadibna isla safarkaa iyo sanadkaas baad haddana xajkii samayn. marka waa cumro madax bannaan oo hore iyo xajkii oo ku xiga oo isla hal saniyo hal safar aad samaysay. waxaa la yidhaahdaa tamatuc baa la yidhahdaa noocaas. nooca labaadii waxa weeyaan inaad xaj keliya ku tala gasho, cumraba qorshaha kuuguma jirto, waxaad rabtaa keliya inaad xaj gudato. miiqaadka markaad marayso waxaad markaa leedahay labayka xajan ama allahuma labayka xajan, ilaahu xaj baan kugu ajiibay. marka iyadana qaabkaad samayn doonto waa sheegi doonaa, xaj keliya ruuxu markuu wato. nooca saddexaad waa in aad rabto xaj iyo cumro isku dhex jira oo acmaashoodii isdhexgelayaan, oo acmaash kala baxsan aan ahayne hal camal baad wada samaynaysaa, isagaasaa xajkiina kuu noqon cumradiina kuu noqon. taana waxaa loo yaqaanaa qiraan baa loo yaqaanaa. waa isku lamaanin, acmaashii xajkii ayaad isku lamaanaysoo isdhexgelisay. saddexdaa qaabbaa kaa markaad xarmanayso dambe saddexaad aad xidhanayso waxaad ku xidhanaysaa ood leedahay labayka xajan wa cumra. alla waxaan kugu ajiibay xaj iyo cumro wada socda. waa qaabka saddexaad waay. saddexdaa qaab baa loo xajiyaa. saddexda qaab midka ugu fadli badan ee ugu fiican ee xagga ajirka ugu badan waa ka ugu horeeya ee tamatuca sida xooga badan ee raajixa. maxaa yeelay nabigeenu sal lla lay wasalam xajkiisu qiraan buu ahaa. isaga wuu isdhexgeliyey xajkiiyo cumrada oo noocaasuu isaga xajkiisu ahaa sida raajixa. laakiin markuu maka tegey oo uu xoolo wadoo hadyi keenay ayuu wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa waxaan hadda oga, arrinkayga haddaan soo qaabilsan lahaa horay u tegey, wuxuu nebigu sal lla lay wasalam hadyina ma keeneen, cumraanan ka dhigan lahaa. yacni qiraanka waxaan ku bedelan lahaa tamatuc baan ku bedelan lahaa buuri. saxaabadiisu markay tageen ayagoo xaj keliya watana wuxuu amray cumro u bedela. markay qaarkood waxoogaa isyara maaragtay ka yara gaabiyeen oo ka yara dibdhaceenna waa u xanaaqay nebigu sal lla lay wasalam. intaasoo dhan waxay faa'iidaynaysaa inay xoog badan tahay. saddexda nooc waxaa u fadli badan nooca la yidhaahdo tamatuca, oo macnaheedu yahay inaad cumrada hormariso, iyada marka hore si madax bannaan u gudato,
xajkana aad ka dambaysiso isla safarta aad gudato isagoo acmaashiisu ka madax bannaanta taas ayaa u fadli badan muxuu ahaaye oo u fiican xataa waxaa raajixo xoog badan xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dakhalat al-umratu fi al-hajj ila yawm al-qiyamah umradii xajkay dhex gashay ila qiyaamada laga gaaray umradii xaj ma kala baxsana bimaana wuxuu ka wadaa in la isla umraysto allahumma umradii xajka la isla guto oo tamattu hal safar aad uga wada faa'iideysato hal ruux ma waxa u fadli badan inuu qiraankiisa wato bal in loomaba ogolay qaar kood leeyna culimadu waa ruuxa xoolo ka soo kaxeeyay xaramka banaankiisa xoolo ka keenay oo hadii waday ruuxaasi sidii nabigu sameeyay sallallahu alayhi wasallam isaga waxa u fadli badan oo uu sameeynaya qiraanka saxaabada intii hadiyiga waday xoolaha banaanka ka keentay xaramka keentay qiraan bay iyo xajkoodu wuxuu ahaa qiraan sida nabiguba sameeyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tayib taasi waxa weeye marka noocyade saddexda nooc ayaan marka kala ogaanay nooca u fadli badanna waa tamattuca isagaana hadda maanta u fudud maxaa yeelay markaad gudato umrada waa u tagi doonaayo waad iska xalaaloobi dharkaagaad xidhan wixii xaraam ka noqday ba xalaal ku noqon magaaladaadaad iska joogi ilaa xajka la gaaro labada kale waxay kaga adag yihiin ayaga ma xalaaloobaysid ilaa la gaaro maalinka tobnaad ee xajka yawm an-nahr ilaa la gaaro ma xalaaloobaysid laakiin umrada hadii aad tamattu ka dhigato umrada waxay ku saamaxaysaa markaad amalkeeda gudato inaad markaa aad iska xalaalo waxa ku banaan hadii aad baqayso oo isleedahay ama wuxuun aadan ku talagelin kugu yimaada markaad xiranayso waxa fiican inaad sharti dhigato sida xadiidkii Dubaa'a bint Zubayr ibn Abd al-Muttalib nabigu sallallahu alayhi wasallam يعني waxaad tiraahdaa Allahumma mahilli haythu habastani ilaahayow meeshii aan ku xalaaloobayo waa meeshaad igu celiso meeshaan dhaafi waayo ilaahu waan ku xalaaloobaya markaad xarmanayso xidhanayso haddaad intaa ku darto oo hadhow in case waxaadan ku talagelin kugu yimaado مثلا lagu soo celiyaba ama lagu xidhaba way dhici kartaa xabsi aad gashadoon acmaashiiba sameeynin ama aad jiratood acmaashiiba sameyn weyd waxay ka baajinaysaa shartigaasi wuxuu ka baajinayaa laba qodob waa midda koobaad ee wax xoolaa inaad gowracdo kugu laazimi maaya xisaarka celinta lagu celiyay waxay ka baajinaysaa shartiga hore celintaasi xoolihii ka dhalan lahaayay la qali lahaa waa midda labaad xajkaagu haduusan waajib ahayn inay soo noqotood guddo mid labaad baa kugu laazimi lahaa hadduu xajku waajib ahayn hadduu waajib yahay laba gooraba inaad soo celiso waa laazim laakiin hadduu sunno ahaa oo lagu celiyo adoon sharti dhiganin marka waxaa laazim noqonaya inaad mar labaad soo xajido haddii cumro lagaa celiyo mar labaad inaad soo cumraysatood guddo ayaa laazim kugu noqonaya sida culimo fara badan ay qabaan marka shartigani faa'iidadiisu waa taa wuxuu ka baajinayaa haddii lagu soo celiyo arrimahaas uu ka baajinaya shartiga aad dhiganayso macna way ku banaan tahay su'aasha taala waxay tahay markaan xarmanayo oon xajka xidhanayo ama umrada xidhanayo qabays ma la iga baahan yahay qabays waa soo sheegnay loo baahan laakiin waxa meesha ku jira wax salaad khaasa oo xidhashada xajka iyo umradu ay leeyihiin ma jiro sida raajixa wax salaad oo sunna oo meesha la tukanayo ma jirto kaliya nabigu wuxuu sameeyay sallallahu alayhi wasallam meeshii miiqaadkii laga xarmanayay wuxuu ku soo aaday xilli duhur taagan yahay duhurkii buu tukaday kadibna hashiisii buu fuulay korkeeda iyadoo isagoo saaran buuna nabigu xarmaday sallallahu alayhi wasallam Allahumma haddii meesha aad ka xarmanayso aad Madiina ka timid oo dal xulayfa meesha la yiraahday reer Madiina ay ka xarmadaan halka hadii ay tahay meeshaad ka xarmanayso marka waxa sunna ah laba ragcadood oo aan xarmashadu lahayn ee laakiin meesha iska leh nabiga sallallahu alayhi wasallam Jibriil baa u yimid markaasuu wuxuu ku yiri tog barakaysan baad joogtaaye tuko marka labada ragcadood togga iska leh
waadi alcaqiiq meeshan uu ku yaala dalxulayfa halkaa haddaad ka xarmanayso 2 ragcadood oo sunno ah oo meeshu leedahay boosku leeyahay ayaa wanaagsan inaad tukato. ama mawaaqiida kaliya meelaha kale laga soo xarmado xarmashaduna salaad khaasa ma leh meelaha laga xarmanayana salaad khaasa ma leh qodobna ka isaga طيب waxa inta xiga markaad xarmato oo diyaaradda miiqaadkii markay marayso aad tiraahdo labbayka umratan waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan marka hore idin sharxo sidii idinkoo gudanaya nooca ugu fadli badan oo tamattuca ah. markaan tamattuca sharxo kadib ba waxaan dib ka sheegi doonaa ruuxa xaj kaliya wata mufridka ama qiraanka wata maxay ku kala gedisan yihiin wax yar bay ku kala bedelaan doonaan waxay ku kala bedelan yihiin marka dib baan ka tilmaami doonaa laakiin waxaan rabaa inaan sifeeyo sharxo ruux tamattuc gudanaya oo umro hore iyo xajkii oo ka dambeeyo kala madax banaan doonaya inuu guto waana sida fadliga badan ee ajirka badiisu ku jiro. طيب miiqaadkii markii la gaaray waxaan nidhi wuxuu xidhanayaa umru xidhanaya oo wuxuu leeyahay labbayka umratan. طيب markuu xidho waxa sunna ah inuu markaa bilaabo talbiyadii inuu ku dhawaaqo tawxiidka oo nabiga sallallahu alayhi wasallam muxuu ahaayay talbiyadii laga bartay labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak. waxa kale sugan oo iyadana aad ku dari kartaa sidii ka sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam labbayka ilaaha alhaq ayadana way suganta. saxaabada qaar kood waxay dhihi jireen nabiga oo maqlaya sidoo kale labbayka dhal ma'arij labbayka dhal fawadil labbayka dhal ma'arij labbayka dhal fawadil saxaabada qaar kood way qaadi jireen nabiga oo maqlaya sallallahu alayhi wasallam ayadana hadaad ku darto dhibaato male. طيب taani waa talbiyada marka waxa weeye waxa fiican oo sunnah inaad kor u qaado oo aadan qarsanin oo hoos u dhigin inta qaadi karto inaad qaado. hayla nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu jibriil baa yimid oo wuxuu amray inaan saxaabadayda amro iyo dadka la socda an yarfa'u aswaatahum bitalbiya inay talbiyada kor codkooda ugu qaadaan labbayk allahumma labbayk inta gaarsiin karto kor u qaad. maxaa yeelay sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam afdalul hajj al-hajj wal-thajj nabiga sallallahu alayhi wasallam hajj waxa u fadli badan xoolo iyo dhiig la daadiyo iyo talbiyada oo kor loogu dhawaaqo ba xajka u fadli badan nabiga sallallahu alayhi wasallam marka in kor loo qaado ayaa sunnah. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim kor bay ugu dhawaaqi jireen ilaa ay xabeebtaan oo cunahoodu isxidho ayay kor ugu qaadi jireen macna. culimada badankood waxay qabaan talbiyada lagu dhawaaqayo dumarku ayagu hoos bay u qarsanayaan kor ugu dhawaaqi maayaan waa siday culimada badankood qabaan laana waxay leeyihiin asal waxa loogu talagalay dumarka inaysan sawdkoodu kor u kicin laakiin bacdu ahli cilmi ba waxay leeyihiin haday dadka ka agdhow iyo dadka la socdo maqashiiso kor u yar qaado dhib male. sidaasina Aisha ay ka suganta way talbiyeysan jirtay labbayk allahumma labbayk korbayna u yar qaadi jirtay. طيب marka waxay leeyihiin dhib male xogaa haday kor u yar qaado wax dhib male bay leeyihiin. talbiyada marka uu wadaya ruux uu wadaya maxaa yeelay talbiyada aad qaadayso wax alla waxa dhinacyaha ka jiro oo dhan way kula talbiyeysanayaan adi ma maqlaysid laakiin dhagaxyaanta iyo geedaha iyo waxan dhinacyaha ka jiro oo talbiyada way kula qaadayaan macna khaasatan markaad ama daadagayso oo meel daadaga ku daadagayso ama meel dalcad aad fuulayso ayada si khaas ah talbiyadaasi marka waa wadaysa. hadii aad marka qaar kood aad ku dhex darto talbiyada aad tahliisha ku dhex darto ayadana dhib male oo la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah hadaad ku dhex darto marna tan tiraahdo ayadana way ka sugan tahay nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi oo iyaduna waa kaywa. طيب talbiyada waad wadi diyaaradii baa nala degtay jiddaan tagnay meel madiinatul xujaaj la yiraahdo la isku xareeyay oo xogaa basaska lagu sugo ma habeen ma saacado talbiyadaadaad wadan baskii baa la fuulay waxa loo sii socdaa Makka talbiyadaadaad wadan makaad gashay
magaalada Makka markaad gasho ad sii galayso haday ku suroobi karto inaad qabaysato qabaysku markaas uu sunnay galitaanka Makka in loo qabaysto taasaa nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam laakiin maanta wax fudud ma aha maanta waaqiceenan ma fududa inaad baska ka degto oo qabaysato laana adiga dhanba wad afduuban tahay ma lagu ogolaba inaad dhaqaajiso dad baa ku wata shirkadaha ku wata ma degi kartid sidaas daraasteed qabayskaasi waa sunno hadii uu adkaadana waa la soo gudbayaa waa marka Makka la galay طيب jidka doontaad ka gali kartaa laakiin nabigu jid gooniya buu ka galay maxaa yeelay kullu fijaji makkah tariiqun wa manhar ibn sallallahu alayhi jidadka Makka oo dhan waa jid laga gali karo rasuulku sallallahu alayhi wasallam saadu socoto taqriiban sida ay sameeyaan waxaad ku degaysaa hotelkaagi meel baa lagu geynaa hotel baa lagu geynaa kaadar baa lagu siinaa gacanta baa lagu xidhayaa calaamada ay aadan lumin kaad baa lagu sameeynaya waxa soo dhan muxuu ahaayay muxuu waad xarmanta labadaadii go'na waad qabtaa waadna talbiyeysanaysaa kolba sidii kuugu suroodo طيب markaad saa u xarmato oo aad Makka tagto marka waxaad u qastaysaa oo aadaysaa masaajidkii iyo Kacbadii طيب Kacbada markaad dimaado masaajidka ka horeeyay leen Kacbadu waxay ku jirtaa masaajidka gudihiisa markaad masaajidka gashood ka gudubto gudihiisa Kacbada ugu tagaysaa sidaas daraadeed markaad sii galayso masaajidka waxa fiican in aad samayso nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani adkaartii uu jideeyay masaajida gelitaankooda uu jideeyay waa sunna iyadana markaad masaajidka xaramka galayso in aadan halmaamin oo lugta midigta intaad hormariso inaad tiraahdo Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma iftah li abwaab rahmatik lil masajid baad galaysaa ama aad tiraahdo a'uudu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim wa sunno masaajid oo dhan bayna sunnowta markaad Kacbada aragto intaad masaajidkii gasho Kacbada ku muuqato waxaad samayn kartaa inaad labada gacmood taagto Abdullah ibn Abbas bay ka sugantay markuu Kacbada arkay uu labada gacmood taagay طيب Kacbada markaad aragto araggeeda aad aragtay dhikri khaas ah iyo wax la akhrinayo gooniyo nabiga ka sugan ma jiro taa waxay khilaafsan tahay kutubta yaryarkee dadka qaarkood ay wataan baa waxay leedahay Kacbada markaad aragto dhikrigaas akhri wax ka jira male wax dhikri khaas oo meesha ku soo arooro nabiga ka sugan ma jiro sallallahu alayhi wasallam markaad Kacbada tagto waxaad bilaabaysaa marka inaad dawaafto umradaadii baad guda galaysaa umradii xagee ka soo bilaabatay waxay ka soo bilaabatay inaad soo xarmatay sooma soo xiratay Kacbada timid waxa laga rabaa marka Kacbada marka timid 3 amal ama 4 amal baan dhaw inaad samayso Kacbada wareega lagu wareegayo dawaafka laba ragcadood oo ka dambeeya oo la tukan Safiya Marwa dhexdooda oo la socon iyo xiirasho timaha la xiiranaya ama la gaabsanayo intaasi waa umradaadii shaqadaad qaban lahayd طيب mid baan isu dul taagaynaa mid walba qaabkaad u sameyn lahayd marka xarmashadii waan soo marnay tawaafka Kacbada aad dawaafayso qaabkeen loo dawaafi labada ragcadood ee la tukanaya xagee lagu tukan maxaase la akhrin sacyiga labada buurood dhexdooda la soconayo qaabkee xiirashada iyo gaabsiga qaabkee afarta qodob mid walba sharax yar baan isdul taagaynaa insha Allah ta'ala Kacbada markaad timaado waxaad ka bilaabaysaa wareegaaga meesha uu ku aadan yahay dhagaxa madow macnaha wax weeyaan Kacbadu waa 4 tiir oo isdhowraysa waa sida hadda miiskan oo kale waa tiir iyo tiir iyo tiir iyo tiir waa 4 tiir waa 4 tiir mid ka mid ah buu dhagaxa madow ku jira umaatigiisa marka meeshaas ku aadan dhagaxa madow baad ya socodkaagu ka bilaabanaya حتى هدات كعبة دينعية كلا كسو قشو مثلا هل كانت كسو قشي إلى آد سو وريكتود هل كا حدقا حمدو كوتشيرو آد سو قادو وريك قاقو ما باللابنين سعود كاكلت سو سعودتاد ميشا كو إيمانا يسو وما أها محوها هاي عبادة ما مركات دقا حمدو سو قادو أيا واحد باللابا يسا وريكي سحضا مر دقا حمدو مركا إيا كعبدو ببيدح دي بكاحيك سنية
wareega markaad bilaabayso bidixi bay kaa xigaan markaasaad sidaa usoo wareegaysa. ayib dhagaxa madow markaad timaado waad ku jeesanaysaa markaasaad allahu akbar leedahay. allahu akbar haddaad bismi illaahi ka hormarisana iyadana waa sax oo tidhaahdo bismi illaahi allahu akbar. kadibna gacantaad marinaysaa dhagaxa madow hadday kuu suurowdo. hadday kuu suurowdo inaad dhunkatana waa dhunkan isaga laftiisaad dhunkan. hadday kuu suuroobi karto intaad madaxa la gasho inaad ku sujuuddana waad ku sujuudi. hadday sujuudi kuu suuroobi weydo oo dhunkasha kuu suuroobi weydo oo inaad gacanta mariso kuu suuroobi weydo oo dhunkato waana siday u badan tahay inayna haddoo kale kuu suuroobi karin waay waxbaa isdhibin markaa dhagaxaas dhib mooye wax kale kala kulmi maysida ha raadsanin dadkana ha dhibin adiguna ha isdhibin. meeshaas kore ee la marayo markaad ku aadan tahay intaad ku soo jeesato ood xaggiisa soo qaabisho bismillaahi allahu akbar dheh kana soco wareegaaga wado laakiin ha isku dhibin dadkana ha dhibin gacantaas uun kaga kaaftoon. waxaa yeelay nabigeennu sal alla alay wasalam cumar ibnu khataab wuxuu ku yidhi yaa cumar innaka rajulun qawiyun falaa tu'di daciif. cumarow nin xoog badan baa tahay dadka tabarta daran ha dhibin buuhi. waidaa aradta istilaama alxajar haddaad rabto dhagaxa inaad gacanta mariso fa in khalaa laka fastalimhu buuhi. hadduu kuu cidloobood jaanis ka hesho hadda gacanta marso. ayb wailaa fastaqbilhu wakabbir haddii kuu suroobi weydo intaad ku jeedsato uun allahu akbar dheh kana soco buu nabi sal lla alay wasallam. meeshaa dadka cawaamada ama caamada ah dhib badan baa ka haysta yacni dhagaxa gaadh buu isdhihi markaasuu dad fara badan burburin waxaa laga yaabaa xataa dad inuu dilo oo sabab u noqdo xujaydu inay isjiidhaan oo dad ku dhintaan asagii dhib badan baa ka soo gaadhay waxba isdhibin marka waxba cidhiidhigaa isgelin meeshaas mar bismillahi allahu akbar kana soco shaqadaada wado. ayib dhagaxaasi gacan marintiisa ajir badan baa ku jiro nabigu sal lla alay wasallam wuxuu yidhi dhagaxa maalinta qiyaamada waa la soo saarayaa isagoo 2 indhood leh oo wax ku arkayo carab uu ku hadlana leh wuxuu u markhaati kacayaa cid kasta oo xaq ku taabatay. waxaa kaloo nabiga ka sugan sal lla alay wasallam inuu yidhi dhagaxa madow iyo rukniga ku xigoo tiirka yamaaniga ee kan isaga xagga ka xiga ah labadaas taabashadooda dunuubta ayay daadiyaan buu nabigu sal lla alay wasallam. marka ajir badan baa ku jira xadiis badan baa ku soo aroortay. ayib dhagaxa madow markaad timaado marka wareeggii baad bilaabaysaa. hal wareeg markaad soo wareegto ood isaga timaado hal wareeg baa kuu dhammaaday. haddana mid kalaad bilaabaysaa hal wareeg baa kuu dhammaaday. 7 wareeg baad sidaa ku dhammaynaysaa. sheekh baalkaasi ciddii tilmaamaysa ha tilmaanto isagoo yar bay ficleed meesha la soo dhigo. marka waxay ahayd bimacnaa wax weeyaan wareegga hal mar markaad soo dhammayso dhagixii madoobaa ku aadantahayba hal wareeg baa kuu dhammaaday. ayib wareegga marka dawaafkaa hore eed kacbada tagtay ugu horeeya wareegga waxaa kuu dheer markaad wareegga bilaabayso dawaafka bilaabayso ninna aad tahay dumar maya ninna aad tahay waxaa sunno ah inaad samayso waxa la yidhaahdo indibaaca. indibaaca waxaa la yidhaahdaa in aad marada go'a aad qabto faraqiisa midigtaa inaad kilkisha hoosteeda ka soo saarto faraqiisii kalena uu kuu saaran yahay garabka bidixda ah korkiisa. markaad faraqan xagga ka soo wareejiso halkanaad saaranaysaa marka labadii faraq halkana isugu tegayaan garabkanna waa bannaanaanaya waxaa la yidhaahdaa indibaac baa la yidhahdaa. inta aad dawaafkaa hore eed ku timid kacbada markaad timidba aad samaynayso sunnadaasuu leeyahay. waxaadna ku baraarugi dawaafkaa keliya iskale indibaaca dawaafyada damboo dhan ma laha. markaad kacbada timida ugu horraysay dawaafkeeda iskale. waxaa kaloo iyadana sunno ah dawaafkaa hore in aad 3 wareegee hore hadday kuu suurowdo waxoogaa inaad yaro orodood ruculayso 3 hore laga bilaabo dhagaxa madow ilaa dhagax madow aad ka soo gaadho waase goorma haddaad jaanis hesho waay. inta badan inaad jaanis hesho uma badna soo ma haddaad jaanis weydo waxba ha ordin 7daba aayar iska soco laakiin haddaad jaanis heli karto 3 hore yaraha orod oo ruclee
taasina waa sunnadii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh. tayib wareegga aad wareegayso waxaynu nidhi dhagaxa madow mar kastood marayso 7 wareeg haddaad taaban weydo oo dhunkan kari weydo gacantaa taagi bismillah allahu akbar baad leedahay waad ka soconaysa. waxaa iyadana sunno ah hadday kuu suuroobi karto inaad taabatood gacanta mariso tiirka isaga ka horeeya markaad wareegayso oo waxaa la yidhaahdaa alruknu lyamaani baa la yidhahdaa rukniga tiirka yamaneed. labadan tiirba yamaniyiin baa laisku yidhahdaa, yaman bay ku abtirsadaan maxaa la dhanka yaman bay xigaan. labada tiiree dhankana shaamiyeyn baa la yidhahdaayo dhanka shaam bay xigaan. labadaa magac bay kala leeyihin. marka tiirkan markaad wareegayso dhagaxa madow ka horeeya haddaad taaban karto isagana taabo gacanta mari. haddaad taaban kari weydo waa say u badan tahay oo kuu suuroobi waayo ha isdhibin ka soco. hana gacanna ha taagin waxbana ha akhriin iska soco waa haddaad gaadhi kari weydo. ayib waxaa kaloo iyadana sunno ah labadan tiir dhexdooda markaad marayso socodka aad ku jirto meeshaa markaad ku aadan tahay inaad akhrido ducada ah rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar. waa sunno waase xaggee labada tiir intaad u dhaxayso oo dhex marayso ee yamaaniyeenka ayadana waa sunno. ayib 7 wareeg markaad saa ku dhammaysato labada tiir ee xagga xigeen nidhi shaamiyeyn baa la yidhahdaa ee qowladda yarta ii u dhaxayso qowlad yar dhismo yaroo gaaban baa u dhaxeeya labadaa tiiree dhankaa xiga ayaga lamana taabto layskuna mashquuliyo. waxaase laga maarmaan ah dhista yarta ee wareegga ah inaad kor ka marto. haddaad meel yar oo dhista wareegga yarka iyo kacbada dhexdeeda meel yaroo bannaan baa jirtoo la mari karo halkaa haddii aad markaad wareegayso marto wareeggaasi kacbadii dhexdeedaad martay maadan ku wareegin laanna meesha yartee dhisan kacbaday ka tirsantay. kor inaad ka martaa la doonayaa marka ood kor ka wareegto macnaha 7 goor markaad sidaa ku dhammaysato 7 goor markaad wareegto oo wareeggooda aad dhammaysato waxaa kugu xiga intaana ka gudbin dawaafka aad wareegayso kacbada dikri khaasa oo soo arooray ma jiro marka laga reebo rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana oo labada tiir dhexdooda markaad maraysaa kaa markii laga reebo dikri kaloo khaasa ma leh. kacbada intaad wareegayso ama qur-aan akhri ama ilaahay xus ama tahliisho ama muxuu ahaayey ama ducayso aday kuu taalla. nabiga waxaa ka sugan sal ly slam inuu yidhi dawaafka kacbada lagu wareego waa salaad laakiin ilaahay wuxuu xalaaleeyey in la hadlo waa salaad lagu hadli karo wa ee faman nataqa falaa yantiq ilaa bikhayr buud ee ruuxii hadlaya khayr waxaan ahayn yuusan ku hadlin. waxaa la diidan yahay inaad kacbada adoo dawaafaya aad khalad ku hadasho wax khaldanoo shareecada khilaafsan aad ku hadasho ama iska sheekaysataba. dadka qaarkood markay wada socdaan oo lilasaf markay wada socdaan oo koox u wada socdaan meesha iyadaa wayba iska sheekaysanayaan. waxaa laga yaabaa waxaan macnolayn laga sheekaysto qabiil laga sheekaysto jabhadayn laga sheekaysto siyaasad laga sheekaysto meesheedii ma ah soo ma booskeedii ma ah. marka dikriga ilaahay iyo xuskiisa in aad ku mashquushaa la doonaya hadalka caadigana aad iska yarayso. beydka looma ogola haweentu inay dawaafto markay caado qabto ruux qaawanna looma ogola inuu dawaafo sida nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam. markuu ka wadhameeyo oo wareeggii ugu dambeeyo 7 uu dhammaysto kacbada wuxuu daboolayaa garabkii bannaanaa. wareegga ugu dambeeya markaad dhammaysatay 7 waa inaad garabka daboosho oo aad gu'i ku soo celiso si caadi ah. indibaacii marka waa dhammaaday. ayib markaad kadib waxaad aadaysaa dhanka muxuu ahaayey maqaamu ibraahim. maqaamu ibraahimka waxa weeyaan wuxuu ku aadan yahay markaad dhaafto dhagaxa madow tiirku ku aadan yahay wax yar markaad xagga u dhaafto dhulka kaa xigsanaya dhanka midig ayaa la yidhaahdaa maqaamu ibraahim. dhankaas waa inta badanna waxaad ku arkaysaan dhalo guri yaroo dhalo oo dhisan baa meesha ku yaalla. guriga dhalada ah gudihiisa waxaa ku jirta dhagax ay ka muuqato raadkii lugtii nebi ibraahim markuu kacbada dhisayey
oo kacbada dhismaheedu kor u yara kacay ayuu dhagax keensaday dhagaxii buu isku taagay ilaahay aayaadkiisa ka mid weeyana dhagaxii un baa lugtiisa qabsado raad noqday dhagax marka meeshuu ku jiraa wixii dhulka ka dambeeya iyo meeshaas ayaad marka aadaysaa markaad sii socotana waxaa fiican inaad akhrido aayadda qur'aanka wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa kadibna meeshaasaad meelaad kaga tukaad raadsan haddii kuugu adkaato inta badan waa cidhiidhiya ha isku dhibina dib u bax ilaa masaajidka haddaad meel ka hesho xataa dib isaga bax meel markaad hesho ku tuka marka 2 ragcadood baa tukan 2 ragcadood midda hore waxaad akhrinaysaa qul yaa ayuhal kaafiruun midda dambana qul yaa kaafiruun markaan leeyahay macna faatixada iyo qul yaa kaafiruun waa midda dambana waxaad ku akhrinaysaa faatixada iyo qul huwalle halka 2 ragcadood baad ku tukan nabigu sidoo sameeyay waxay 2 ragcadood markuu dhameystay ceelka zamzam buu tagay biyuu ka cabay aad buu ga dhargay wuu isku shubay kadibna wuu soo noqday mar labaad buu dhagixi madooba ku soo laabtay oo uu masaxay haday ku suuroobi karto waa okay hadii ku suuroobi kareenina waa isaga socon waxaad aadaysaa marka taasi waa dawaafkii oo dhamaynay waxaa ku xiga inaad aado labadii buureed ee Safiya Marwa buuray ahaan jireen laakiin hadda waa meel iska gaagaaban oo taagtaag labada xaggooda aadaysaa waxayna ku quman yihiin dhagaxa madow xaggiisay ku quman yihiin wax yar bay xagga yar jiraan xaggaad aadaysaa ishaaradaad raacaysaa waxaad fuulaysaa oo ugu hormarinaysaa meesha la yiraahdo buurta Safa ayaad fuulaysaa markaad fuusho oo aad buurta ku sii socoto oo ku dhawaato waxa iyadana sunnah inaad akhrido aayadda quraanka inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khayran fa inna allaha shakirun alim bimaana wa markaad ku sii socoto ku dhawaato kadibna nabigu wuxuu nabda bima bada allah bihi ti ilaahay ku bilaabay baan ku bilaabayna labada buurood quraanku wuxuu ku bilaabay Safu ku bilaabay taa uu quraanku hormariyay baan anagana ku bilaabayna abu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ruux fuulaya marka Safa korkeedu fuulaya markuu fuulo uu soo jeesanaya kacbada xaggeedu uu soo jeesanaya kacbada hadduu arki karo inuu arkaa fiican haddii kale inuu wajigiisa ku aadiyo siday ugu suuroobi karto buurta korkeedii buu saaran yahay kacbaduna uu soo jeedaa markaasuu wuxuu akhrinayaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 goor لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ماشي وسارين يهي قبلتنا كوتشيدا صفكر كيدو سارين مركو انت أخريو يدعيسن تقعمها كورو تاقو دعيسن ducadiisa markuu dhamaysto hadana wuu ku celin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah sidii uu soo maraya markaasuu hadana ducaysa mar saddexaad buu hadana ku noqon markuu ducada dhamaysto markuu dhameeyo hadana mar saddexaad buu gadaasheeda ducaysan 3 goor oo dhikriga uu akhriyay markasta uu dhameeyana uu ducaystay buu Safa korkeeda saarnaa qibladana uu soo jeeday inta markuu dhamaystay buu daadagay wuxuu ruuxu aadaya marka marwuu aadaya buurti kalu aadaya tayib socodka uu marka socdo marwo u sii socdo socodka uu socdo yaani waxa jirta meel ahaan jirtay labada buurood dhexdooda u dhaxaysay oo tog bacaad la ahaan jirtay hadda se wixii oo dhade waa la aasay oo waa yaani smith iyo tiles iyo waxba la dhigay waxba ka garan maysid laakiin calaamad baa loo sameeyay korkaaga markaad socoto waxaad ku arkaysaa muxuu ahaa nal cagaar ah iyo nal kale oo cagaar oo halka ka muuqdo korkaaga ku dhagan nalka cagaaran markaad ku aadan tahay orod baad bilaabaysaa ilaa aad nalka kale cagaaran ka gaadho dhexdooda waad ordi markaad soconayso kadibna saad markaad dhaafto waad iska socon tartiib baad u socon buurta marwo korkeedaad fuulaysaa qibladaad ku soo jeedsanaysaa sidii aad Safa korkeeda samaysay baad ku samaynaysaa markaad dhamaysato waad soo gadoomaysaa
waxaad soo aadaysaa safaad ku soo noqonaysa markaad meelihii calaamadaha lahaa nalka cagaaran lahayd dhex marayso haddana waad ordi noqodka sidaas baa waxaad ku dhammaysanaysaa 7 socod oo markaad safa ka tagto oo marwo aad tagto waa hal socod markaad marwo ka soo noqoto oo aad safa ku soo noqotona waa socod labaad sidaas baad 7 ku dhammaysanaysaa midka u dambeeyana marwo korkeedu ku dhamaanaya saa waxaan u leeyahay dadka qaarkood waxaa ka khaldanta halkii wareegba sidii wuxuu u qaadanayaa dawaafkii kacbada oo kale markaasuu halkii wareegba safa markuu ka tago oo marwo tago oo soo noqdo oo safa yimaado buu hal xisaabsanaya taa marka 14 bay ka noqoni sooma marka sida saxda halka buur labada buurood dhexdooda halkii socodba waa wareeg sidaasay 7 ku dhamaan markay saa kuugu dhamaato oo socodka aad dhamaysato waad ka tagaysaa waxaa ku laaban marka muxuu ahaayay in aad timaha xiirato ama aad gaabsato inaad timaha xiirato ama aad gaabsato nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahay u bariyay dadka xiiranaya ilaahay inuu naxariisto markaasa waxay saxaabadu yiraahdeen rasuulka ilaahay kuwa gaabsanayana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kuwa xiiranaya Allahu naxariisto rasuul ilaahay kuwa gaabsadana kuwa xiira Allahu naxariisto rasuul Allah kuwa gaabsadana Allahu naxariisto mar danbay galeen sooma marka sida fadliga badan waa xiirashada laakiin haddayna xajkii soo dhow yahay oo iyadoo xajkii maalmo ka laaban yihiin timuhu ayna soo bixi karin haddaad tagto gaabsiga ku fadli badan maxaa yeelay xajkana waxaa lagaaga baahan doonaa timo aad xiirto sooma marka haddii xajkii soo dhow yahay oo timuhu muddada ayna ku soo bixi karin umrada waxaa ku fadli badan inaad gaabsato si hadhow xajka aad u xiirto timo kugu soo hadhaan ama haddii waqtigu kala fog yahay xiirashada fadli badan haddaad xiirato markaasi oo aad timaha xiirto khalaas waxaa ku dhamaaday umradaadii oo ka kooban inaad soo xidhato soo xarmatay inaad dawaafkii samaysay labadii ragcadood oo tukatay labada buurood dhexdooda 7 goor socotay xiirasho ama gaabsi oo samaysay inta markaad samayso umradaadii waa ku idisha waad xalaaloobi marka waxaan ka wadnaa waad xalaaloobi bimaana waxyaalo fara badan oo lagu diiday markaad xarmatay oon ka hadli doono baa ku xalaaloobay yaani caadi baad noqonaysaa marka oo waxyaabihii oo dhan baa xalaal ku noqonaya oo maxaa kamid ah waxyaalaha yaani ruuxa markuu xarmado aan loo ogolayn oo xaraam ka noqonaya way far badan yihiin marka saa u xarmataba waxa xaraam ka noqonaya inaad timahaaga xiirto markaad saa u xidhato umradaba waxa xaraam ka noqonaya timaha inaad xiirto oo timaha ma xiiri kartid meeshay doonaan jirka kaga yaalaan ma xiiri karaysid waxa kale toon lagu ogolayn in aad cidiyahaga jarto ama gaabiso waxa kale lagu ogolayn inaad madaxaaga dado haddaad nin tahay rag haddaad oo shay madaxa ku dhagan ama madaxa la xidhiidha inaad ku daboosho cumaamad ama koofiyad ama go'aad saartay ayaan la ogolayn laakiin hadduu shay ka koreeyo yahay sida mesela dallad oo kale ambareelo oo kale ama baabuuraad ku jirto kale ama guri oo kale saqfigiisa koron kugu dhaganayn taa dhib ma laha waxa kaloo lagu ogolayn dharkan caadiga inaad qaadato haweenta iyada waxaan loo ogolayn inay indhaha shareerato ama ay muxuu ahaayay golfiski gacmo geliska xidhato waxa kaloo lagu diidi wax udgoon oo dhan baa lagu diidi waxa lagu diidi ugaarsiga oo jiray waagii hore ugaadha in la dilo waxa lagu diidi in aad guursato ama guuriso ama aad doonto waa lagu diidi mar haddaad xarman tahay mana guurin kartid mana guursan kartid mana dooni kartid ama wakiil noqo ama aduguba asal noqo sida xadiidka Uthman ibn Affan tilmaamay waxa lagu diidi markaad xarmanto sidoo kale xaaskaaga inaad u galmooto inaad taataabato dhunkato hawlihii ka horeeyay galmada ayadana waa lagu diidi waxa soo dhan baa waxa la isku yiraahdaa mahdhuratul ihram markaad xidhato iyo xaraam ka noqonaya
markaad cumradii dhamaysato marka wixii xaraam ka noqday oo dhan baa dib xalaal kuugu noqonay Soomaaliyeed ma timihi ma xiran ama ma gaabsanin dharkaaga xidho barfuunka iyo cadarka yani isticmaal reerkaaga haday kula socdaan waad isu fasaxantihiin وهكذا وحي lagu diido dhan waa lagu ogolaanay magaaladaada iska joog marka magaaladaada iska joog salaadaha iyo cibaadadkaaga iska wad inta umrada markaad ku dhamaysato maalinka 8aad oo yawm tarwiya la yiraahdo ayaa markaasi xajku bilaabanaya xajku maalinkaas uu bilaabanaya yawm tarwiya la yiraahdo meelaha marka acmaasha xajka lagu sameeyo waa 3 meelood si aad ila socotaan aan idin hormariyo waa Makka oo magaalada gudaheeda oo Kacbadii iyo meeshii sacyiga ku taal Mina oo marka Makka laga tago meesha ugu xigta Mina waxa ku xigta Muzdalifa ku xigta Muzdalifa waxa ka dambaysa oo ka koreysa Arafa ka koreysa inta kalama xaramkay ku jiraan laakiin Arafa iyadu xaramka way ka baxsantay shanta meelood waxaan dhila afarta meelood ba acmaasha la sameeynaya xajka hadaad maqasho acmaashu intaas oo meelood bay ka dhacaysa tayib maalinka marka la gaaro waxaad sameeynaysaa markaad umrada xidhanaysay sidaad sameeysay baad isu diyaarinaysaa waad qabaysan dharkii baad dib isaga furi labadii go' baad xidhan cadar iyo barfuun wixii udgoon baad ismarin waad isdiyaarin waad isnadiifin kadibna meesha aad degan tahay hotelkaaga gurigaaga meesha degan tahay baa xajka ka xidhanaysa maxaad leedahay labbayka hajjan ilatii horan soo marnaa maxay ahayd labbayka umratan tan waa xaj kaliya waxaad leedahay labbayka hajjan kadibna barqinkiibu nabigu sallallahu alayhi wasallam xidhay waxa la aadayaa Mina oo meeshii inoogu sokaysay 3 meelood meeshii ugu sokaysay Mina la tagayaa Mina marka la tago barqinkii tag duurkii tag meeshaas la joogaya galabtaas habeenkaas waxa la tukanayaa duurka lagu tukan oo muxuu ahaay 2 ragcadood waqtigiisii baa la tukan casarka la tukan waqtigiisii isagoo 2 ragcadood maghribkii baa caadi loo tukan 3 ragcadood cishihii baa la tukan isagoo 2 ragcadood salaadii subax baa la tukan waa maalinkee maalinkii sagaalaad waay maalinka sagaalaad subaxdiisii waa maalinkii Carafa marka maalinkii Carafa waay maalinka sagaalaad subaxdiisa waxa laga dhaqaaqayaa Mina Muzdalifa dhexda ku jirtay maalinka shaqo male Soomaalina Muzdalifa ku xigta Muzdalifa maalinka waa la iska dhaafayaa waa la gudbayaa waxa la tagayaa Carafa la tagayaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu san Carafa gaadhin 2 meelood buu dagay oo ku sii dagay laakiin hadda way adagtahay Carafa la tagay Carafa markii duurka la gaaro xilliga qorraxdu ay zuusha la gaaro ayaa imaamku khudbaynaya dadka u khudbaynaya kadibna waa la aadaamaya hal aadaan waa la aqimaya duurkii oo 2 ragcadood la tukanaya haddana waa la aqimaya casarkii oo 2 ragcadood la tukanaya jam'an wa qasran waana la gaabinaya waqtiga duhurkana la isugu geynaya la wada tukanaya saasa loo tukanaya hadaad imaamka la tukatana khayr hadaad imaamkaada la tukanin oo meel kale aad degantahay imaamka ka fogna meesha aad joogtaan baad ku sameynaysaa hal aadaan oo labada ka salaadood ka dhaxeeya iyo mid walba aqimaad khaas ay leedahay sidaas la sameynay inta markii la sameeyo kadib wax salaadood dambe oo u dhaxaysa 2 ragcadood dhexdooda labada salaadood ee duurka iyo casarka la isla tukanayo wax salaadi uma dhaxayso wax salaado sunnana kama dambayso wixii inta ka dambeeya waxa bilaabanaya marka waxa loo yaqaan wuquufu Carafa oo macnaheedu yahay istaaga Carafo banka Carafo istaagidiis istaaga maxaa laga wadaa dadka qaar kood waxa laga yaabaa inay u qaataan istaaga Carafo inaad maanta dhan taagnaato macluuma istaaga Carafa waxa laga wadaa ama dhinac u seexo ama fadhiiso ama taagnow ee digriga Ilaahay ku mashquul baa laga wadaa Ilaahay xuskiis Quraan akhris ducayso adkaar Ilaahay un xuskiisa wax Ilaahay ku dhaweynayo un ku mashquul baa laga wadaa ama qaabkaad isu dhigayso magaadiid baad fuuli nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkaasi halbuuba kor fadhiyay hashiisu kor fadhiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam saas daraadeed wuquufka waxa laga wadaa bimaana
cibaadadoo lagu mashquulaa laga wada ruuxu carafu tagaya marka carafa bankeeda ama meesheeda bannaan weeye laakiin hadda waxaa laga dhisay teendhooyin geedaa laga abuuray meesha iyadaa meeshii aad ka degtaba waa okay nebigu sal alla alay wasalam buurta aad arki doontaan oo carafo dhexdeeda ku taalla jabaluraxma la yidhaahda oo dadku inta badan aadaan oo korkeeda fuulfuulaan ood mooday sida koronkorro oo kale ay dul saaran yihiin buurtaa nebigu ma fuulin in la fuulana waxba loogama baahna ajir gooniyood ka heli fuulitaankeedana ma jiro se nebigu sal alla alay wasalam meeshuu istaagay waxay ahayd buurta hoosteeda dhagaxyaal waaweyn oo yaalla buurta halkaasuu hashiisu taagnayd hasha korkeeduu saarnaa laakiin wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam waqaftu haahunaa wa carafatu kulluhaa mowqif halkan anaa istaagay laakiin banka carafoo dhan waa meel la istaagi karo meel alle meeshii kaaga soo kagaagta adugu istaag laakiin waa inaad hubiso in aad xuduuddii carafo gashay waxaan saa u leeyahay boodhan waaweyn baa meesha ku yaalla markaad garayso carafo halkanay carafo ka bilaabataa markaad ka baxayso waad ka baxaysaa musdelifo markaad gelayso boodhan waaweyn baa ku yaallo ku tilmaamaya saas daraaddeed waa inaad xuduudda carafo gasho haddaad ka soka marto xajkaaga waxba kama jiri doono maxaa nebigu muxuu yidhi sal lla lay wasalam alxaju carafu buu nebi sal lla lay wasalam xaj waa uun carafo xaj waa uun carafo buu nebi sal lla lay wasalam marka carafo bannaankeedaa la istaagayaa maalinkaa isagaa waa maalinka aad u fadli badan allah tabaaraka wa tacaala maalinkaas samada sokuu imaanayaa sida nebiga ka sugan sal lla lay wasalam markaasuu addoommadiisa ugu faanayaa malaa'igta wuxuu leeyahy addoommadaydii fiiriya maxaa keenay rabbi ow naxariistaaday rabaan cadaab bay kaa magangelayaan u sheegay inaan u dembi dhaafay rabbi tabaaraka markhaati ka ahaada waan u dembi dhaafay maalinkaa maalin uu shaydaan ka foolxun yahay oo ka murug badan yahay ma jiro maxaa yeelay ilaahay khalqiga uu naarta ka xoraynayo baa aad u badan marka inaad bannaankaa isaga ka faa'iidaysato oo nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam waxyaalaha u fiican ee looga faa'iidaystana waxaa ka mida tawxiidka afdalu maa qultu ana wannabiyuuna cashiyata carafata laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxaa ugu fadli badan waxaan idhaahdaa aniya nebiyadu galabta carafa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir haddaad doonto waad talbiyeysan kartaa labayk allaahuma labayk waad wadi kartaa haddaad doonto qur-aan akhriso haddaad rabto ducayso wakukaa ayb maalinkaa isaga ah in la soomo sunno ma aha dadka aan joogin carafa ee muslimiinta kale ah baa maalinkaas sunno u tahay inay soomaan amaa dadka xajka jooga maalinkaa inay afuraan baa sunnaa maxaana nebigu waa afuraa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaasaad marka wadaysaa hawshaasaad ku mashquulaysaa si ilaahay tabaaraka wa tacala naarta kaaga xoreeyo markii qoraxdu dhacdo inta qoraxdu ka dhacaysa waa la joogi qoraxdu markay dhacdo ayaa marka laga soo dhaqaaqaya meesha la yidhaahdo carafo laga soo dhaqaaqaya qoraxdu markay dhacdo ayb xaggee la soo aadayaa meeshii ku xigtay oo ahayd musdelifa qoraxdaa kuu dhacday maalinka carafo salaadeeda maqribee soo gashay inaad carafo ku tukato sunnada ma ah salaada dib u rar musdelifaad ku tukan doontaa cishahaad isla tukan doontaa laakiin meeshaa ha ku tukanin jidka intaad sii socotana ha tukanin waa sidii nebigu sameeyey sal lla lay waslm carafuu ka dhaqaaqay markii qoraxdu dhacday jidkuu maray markuu jaanis helo hasha waa socodsiinaya waa la xaadsanayey markuu xoogaa cidhiidhi galana waa celinayey dadkana wuxuu amrayey tartiibsada sakiina xasila ha degdegiina tartiibsada buu nabigu sal lay wasalam sidaasaa marka loo soconaya ayb kadib markaad tagto meesha la yidhaahdo musdelifa markaad tagto xilligaas ayaa marka salaada la aadaamaya hal aadaan waa la aqimayaa salaaddii maqribkaa la tukanayaa oo 3 ragcadood musdelifa lagu tukan waa la aqimayaa salaaddii cishaha la tukanayaa oo meeqa ragcadooda 2 ragcadood wixii intaa ka dambeeya waa la iska seexanaya salaada cisha markuu tukaday kadib nabigu waa seexday xataa habeenkaa salaatuleyl uma kicin maxaa yeelay waad garan kartaayo maalinkaa horena waa maalintii carafo waa la taagnaa waa la daalan yahay maalinta soo socotana shaqo badan baa taalla saas daraaddeed habeenkaa in la nasto xikmad baa ku jirta waa habeenka musdelifa la joogo
waa la iska seexanaya marka sidoo nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaa waagu bariyo markay waagu bariyo xilliga hore ee waagu bariyo buu salaada subax nabigu sallallahu alayhi wasallam tukaday oo muxuu ahaay labadii ragcadood ee fajrka ka horeeyay buu tukaday sunnada ah kadibna salaadii buu tukaday salawaatu rabbi wasalaamu alayhi tayib waxa meeshaasi baraarujin mudan musdalifa inaadan habeennimo ka tagin oo waagu kuugu bariyo salaada subax aad ku tukato baa hadiga nabiga sallallahu alayhi wasallam allahumma dadka loo ogol yahay habeennimo inay musdalifa ka tagaan waa dadka tabarta daran duqeyda aan socon karin dumarka dadka jiran dadka tabarta daran caruurta kuwaasi aan xamili karaynin ayaa habeennimo la sii kaxayn karaa gelinka dambe ama dadka xoog gale maya waa inay waagu meesha kuugu bariyo wabitaali aad muxuu ahaayay aad salaad subax ku tukato markii waaga la tukado waagu bariyo kadib oo salaada la tukado marka waxa weeyaan waa mash'arul haram meesha iyada fa idha afadtum min arafatin fadhkuru allaha 'inda al-mash'ar al-haram markaad arafa ka soo gadoontaan allah ku xusa mash'arul haram ka agtiisa mash'arul haram waa musdalifa markaas ilaahay xuskiisa la bilaabaya salaada subax kadib oo duco tawxiid dhikri quraan akhris halkaasaad marka wadaysa طيب ila goorma ila inta ay qorraxdu ka soo dhawaanayso qorraxdu intayna soo bixin laakiin ay soo dhowdahay ayaad marka dhaqaaqaysaa xageedaadaysa mina sooma mina ku xigta waa mina oo maalintii sideedaad aan marnay maalinkaana maxaa la joogaa waa maalinkee waa maalintii tobnaad ilaan sagaalada carafaan joognay sooma maalinkii tobnaad subaxdeedii baan musdalifa ka dhaqaaqnay minaan aadnay marka subaxda iyada ah shaqo badan baa taala marka maalinkaas tobnaad waa maalinka yawm al-hajj al-akbar maalinka xajka ee ugu weyn waa maalinka shan amal baa la qabanaya shan shaqo ayaa la qabanaya shaqada koobaadi waxa weeyaan in buurta jamrada meesha la yiraahdo in la tuurto shaqada labaadna waxa weeyaan in xoolihii la qalo shaqada saddexaadna waa in la xiirto ama la gaabsado shaqada afraadna waa in kacbada la dawaafo dawaaful ifaada ama dawaaful hajj shaqada shanaadna waa labadii buurood ee safiya marwa dhexdooda la socdo shanta shaqa maalinka taal qaabkeen loo sameeyay mid iyadana aan tafsiil u galin tuurida buurta la tuuranayo markaad musdalifa ka tagto waxaad sii qaadanaysaa 7 dhagax 7 dhagax baad sii qaadanaysaa 7 dhagax ama mina ka qaado ama musdalifa ka qaado dhagaxyaal yar ah dhagax weyn lama rabo mid aad u yarna lama rabo qiyaasta adiga galeeydo kale xabadaha galeeyda ama digirta yara kuuskuusan in ilaahano muxuu ahaa leeyahay ya maragwa digirta yara roon ama galeeydo kale qiyaasteeda waa inuu dhagaxu leeyahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qadarkaas oo kale dhagaxaasad qaadan inaad dhaqdo waxba looma baahna dadka caamadii way dhaqaan way nadiifiyaan waxba loogama baahna 7 dhagax baad qaadan kadibna waad socon meesha dhagaxyaanta lagu tuuro ayaduna waa 3 meelood oo isku xigta markaad mina ka imaanayso musdalifa ka timaadood xagga mina ka soo gasho 3 meelood waxaa kugu soo xigta mid la yiraahdo al-jamratu sughra midda u yar waxaa ku xigta mid la yiraahdo al-jamra al-wusta oo ugu dhaxaysa waxa ugu dambayso dhanka Makka ugu xigta mid la yiraahdo al-jamra al-kubra ama jamratul aqaba maalinkaas mid la tuuranayana waa taas ugu dambaysay dhanka Makka ugu xigta labada kale waad iska soo dhaafaysaa 7daadii dhagax baad wadataa dhankeed ka maraysaa sida sunnada ah ee nabigu sallallahu alayhi wasallam inaa dhanka bidixda ka gasho oo xagga bidixda iska taagto Makkana ay markaa ka xigsato dhanka bidix minana ay ka xigsato dhanka midigta dhanka inaad ka gashaa fiican laakiin dhinacyaha kale hadaad ka gashanaa iyadana waa gudaysaa maxay dadku dhanka kama wada gali karaan waa badan yihiin tayib marka waad istaagaysaa korkeedaad istaagaysaa dhagaxyaantii 7 ahayd wadatay baad mid u tuuraysaa mid ayaad u tuuraysaa adiga oo takbiirsanay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 7 saas u tuuraysaa waxaan kala gadisnayn oo isku mid ah ama dabaqa ugu hooseeya ka tuuro ama ka ku xiga ka tuuro ama ka afraad ka tuuro ama ka shanaad ka tuuro dabaqya hadda laga dhisay si dadka loogu fududeeyo
socodkaad socoteed musdalifa ka timaadaba itijaah waxaad gelaysaa aadan ka leexan karin si dadka loo qaybiyo marka kaa uun aad ku hagaagtay meeshuu kugu hagaajiyo dabaqaa uun ka tuur dhagaxu suu usoo socdo hoosun buu imaan doonaa laakiin adiga waxaad uun isku daydaa inaad dhagaxaaga ku hubsato godka meesha loogu talagalay iyo xawdka halkaa uun inuu ku dhaco ku hubso bas markaad tuurato allahu akbar allahu akbar allahu akbar oo kaa dhammaado toddobadooda aad dhammayso ka ugu dambeeya markaad tuurato halkaasaad ku joojinaysaa labbayk allaahuma labbayka ood soo bilowday goorma markaad xajka soo xidhatay sooma maalinkii sideedaad xajka markaad xidhatay talbiyadaad soo bilowday waxay dhammaanaysaa dhagaxa ugu dambeeya markaad tuurato toddobada dhagax sida nabiga sal lla lay wasalam ee ka sugan ayb taa waa midda ayadana yacni intaasi aan kaga gudubna waa tuurashada waxaad tuuran kartaa marka gelinka hore ilaa duhurkii ilaa gelinka dambe ilaa habeenkii waa la tuuran karaa haddaad jaanis haydo waxba ha isdhibin waqtigu waa waasic khaasatan dadku way isdilaanoo xilligaa hora nin walba isleeya ka faa'idayso marka waa lagu dhintaa meelaha lagu dhintay ka mid ahaan jirto inkastoo hadda la hagaajiyey marka waxba ha isdhibin ilaa habeenkii waa tuuran kartaa macnaha ayb intaa markaad samayso waxaa kuu laaban oo ku xiga gawrici marba haddaad cumro gudatay xajna ka dambaysiisa ood mutamatic tahay waxaa kugu waajibaya gawraca neef adhiya inaad gawracdo haddaadan kari karinna inaad 10 beri soonto 3 beri oo intaad xaramka joogto aad soomi iyo 7 beri oo markaad soo noqoto aad soomi doonto gurigaaga ku soomayso faman tamattaca bilcumrati ila alxaj fama staysara min alhadi faman lam yajid fasiyaamu 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة طيب هديجي اللي جورعي أو مكان واجب كاه أما ضدو حاجرة حولبا كيني وهدي كيني وحولب فرب بدن حرم كيني ولا جورعي أمر حل جاسنا اللي جورعي ومعناها سيدا في عن إن تكون جورع هذا ماشي اللي هو جورع من حركة ميل الله ماشي تكون جورع هذا واسكوميت ميل الله ماشي تكون جورع هذا الظروف تكون سامح هذا واسكوميت جورع عاس هذا waxaa la sameeyaa xujaajtana u fudud markaad tagtaba in aad wakiilato cid xoolaha iibisa oo ka qasha dawladdu waxay ugu tala gashay shirkaday siisay barnaamijka ugu tala gashay oo meelo u furan yihiin wadooyinka dhacyahooda oo lacagta loo dhiibaa $100 miya ma ka badan tahay ma ka yarta qaaliban saasay noqotaa neefka ariga kuwaasaad isaga wareejinaysaa iyagana muhiimadda qabanaya soomaalidana waxaa jira sharikado yaryar iyo ashkhaas laga yaabo kuwa idin wada ajinsiyada inay xataa ka mid yihiin ayaga haddii ay mas'uuliyadda u istaagayaan waad isaga wareejin kartaa si maalinka shaqadaaba aadan ugu baahanin maxaa yeelay cid baad ku wareejisay ciddaas mas'uulka ayadana waa la samayn karaa macna udxiyadaasi markaad qasho sida sunnada waxa weeyaan in la qalo xoolaha geela isagoo taagan ariga iyo lo'dana ayaga oo jiifa in la qalaa sunna ah waa la wadaagi karaa oo dadku iyagoo dhowr ah way ka wada qayb qaadan karaan 7 ruux neef geela waa isla qali karaan 7 ruux neef lo ah waa isla qali karaan ama ariga hal neef ayaa laga rabaa macnaha tayib waxaa la qali karaa oo xoolaha qalitaankoodu socon kartaa maalinta ciida ah ee maalintaasi tobnaad iyo 3 beri oo ka dambaysa ayaamu tashriiq kuwi tobnaadka waad qali kartaa 12 tobnaadka 3 tobnaadka waad qali kartaa intaasi waa ayaam dabxin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadigaaga marka sidaas aad sameynaysaa ku qalaysaa xoolaha hadii hilibka adigu aad qasho qaarna waad cuni qaar waad sahayadan kartaa sidoo nabigu ba sameeyay sallallahu alayhi wasallam qaarna waad sadaqaysan kartaa qaarna waad sadaqaysan sidaas aad sameynaysaa macna fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ayu alayhi tabaaraka wa ta'ala taasna iyadana way banaanta waxa soo haray markaad xoolihii hawshoodii dhinac iska mariso waxa ku soo haray inaad timaha xiirato sooma ilaan kii saddexaad way maalinka la qabanay timahaad xiiran inaad xiirato fadli badan san soo sheeg haddaad gaabsatana way ku banaanta horaan u soo sharaxnay tayib taasi ragga iska leh xiirashada ragga iska leh ama dumarku ayagu xiirasho ma leh gaabsi bay leeyihiin timahooda saasay u qabanayaan kadibna fiida hore ayay wax yar manqas kaga gooynayaan ayna nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam laysa ala an-nisa'i halqun inma ala an-nisa'i taqsir
dumarka korkooda ma aha xiirasho maxaa yeelay timahoodu macnay ku fadhiyaan timahoodu macno ka weyn kuweenu macnay ku fadhiyaan bay ku fadhiyaan in la xiiro ma la rabo marka laakiin way gaabinayaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam tayib xiiriduna waa sida waxa khalad ah oo dadka qaar kood sameeyaan laga yaabo Sheekh Maxamuud inuu idinku baraarujiyay dadka qaar kood waxay sameeyaan meeshii gaabsada la yiraahdo ama xiira wax yar intay timaha ka qabtaan sida dumarka oo kale oo halkan laba xabba ka jaraya kadibna wuxuu leeyahay waa xiirta ama waan gaabsaday waa khalad wala madhabka Shaafiiciga culimadoodu qaar kood ha qabaan laakiin sax ma ala sawaab ama timaha wada gaabi ama wada xiir laakiin wax yar baan qabanayaa sida dumarku oo kale shaqadaasi waa shaqo dumar waa shaqadii rag ma taasina waa qodob baahan la baraaruji maxaan soo sheegnay dhagixii la tuuranayay iyo xoolihii la qalayay iyo kaas dambeeya oo axiirashadii qodobka afraadi wax weeyaan inaad marka kacbada tagto dawaafto dawaafkana waa tiir kamida tiirarka xajka tiir kamida tiirarka xajka hadaad ka tagto xajkaagu ma jirayo seed u dawaafaysaa waxaad u dawaafaysaa horta waxaan soo dhaafay maalinka tobnaad markaad tuurato jamrada acmaasha inteedii kalena ku laaban yihiin baad xalaaloobaysaa maxaa ka wada waa xalaaloobaysaa bimaana wixii xaraam ka noqday oo dhan markaad xarmatay xaraam ka noqday oo dhan baa dib kuugu xalaaloobaya markii laga reebo xaaskaaga iyo dumarku iyagu wali xaraam bay ka noqonayaan laakiin dharkaagii baa dib u xidhan cadarkii baad ismarin hadaad gabadh guursan rabto waad guursan waad codsan waad mehersan kartaa wixii aan soo sheegnay timaha waa dadi waxa kada lagu fasaxay laakiin dumarka wali waa lagu diiday waxaad imaanaysaa kacbada waa dawaafaysa dawaafku qaabkee weeye dawaafku waa kii hore sheegnay uun soomayna marka umradii meena soo sharxin umrada waxaan soo sharxnay qaabka loo dawaafayo laba qodob baan ku jirin meesha oo dawaafkii hore khaas ku ah maxayiin garabkii la banaynayay dawaafkan dambe ma laha rucleyntii la sameynayay iyo orodkiina ma laha saddexda hore orodkii la ordayna ma laha dawaafkani labadaasiba waxaan soo sheegnay waxay khaas ku yihiin dawaafka ugu horeeya markaad kacbada tagto kaasi khaas ku yihiin inta kale ma ay laha waa dawaafaysa dawaafka markaad dhamaysato labadii ragcadood baad tukanaysaa sooma waan soo sheegnay yadana labada ragcadood markaad tukato waa tagaysaa labadii buuro safiya marwo dhexdooda tagaysaa waad sacyinaysaa todobadii socod baad sameynaysaa iyadana soo sharaxnay inta markaad samayso camalkaagii xajka maalinkaas hawshii waa ku dhamaatay shanta camaleen sheegnay waa shantee jamradoo la tuurto xoolahoo la qalo timahoo la xiirto ama la gaabsado kacbadoo la tago la dawaafo sacyigii safiya marwo u dhaxeeyay shantaasi halka maalin wada dhacaya sida hadda aan isugu xijinay buu nabigu isugu xijiyay oo kala tartiibiyay sallallahu alayhi wasallam laakiin hadaad kala hormariso dib male socodkaad socotaba hadaad dawaafka ka bilowdo oo buurta tuurashadii jamradaba soo dhaafto ama xiirashada aad ku bilowdo ama xoolo qalkaba aad ka bilowdo oo isdaba marmariso dib male la haraj nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lubi daawiyad wuxuu rasuulka tanaan hormariyay tanaan dambeysay la haraj wixii ku laaban uu samee ifcal wala haraj saas daraadeed hadii la kala hormariyo dib male intaas markaad samayso kadib oo saddexda arimood ku dhamaadaan maxaa laaban marka alqodba inoo laabnaa waxyaalihii ruux markuu xarmado xaaraanta ka noqday dhamaantood waxay u xalaaloobayaan baan nidhi markuu jamrada tuurto hal qodob mooyee oo ahaa dumarka Soomaa tayib goormuu xalaaloobayaa isagii markaad dawaafka samayso kadib markaad dawaafka samayso waxaad xalaaloobaysaa xalaaloobid buuxda markaad jamrada tuuratana waxaad xalaaloobaysaa xalaaloobid haaf ah oo qaybi wali laaban tahay qodobkaasi kaas weey acmaasha markaad saa u dhamaysato intaana taa ka bixin waxaa kaloo dhici karaysa haddii maalinka aad ka wada gaadhsiin kari weydo maalinkaas
saddex hal camal ama laba camal inay maalinka galaan ugu yaraan waa laga maarmaan kama dib dhici karaan tuurashada jamrada maalinka tobnaad kama dib dhici karto xiirashada ama gaabsiguna maalinka kama dib dhici karo laakiin xoolaha qalidoodu way dib dhici kartaa Soomaa saddex bariyo dambaaba la sii qali kara Soomeena sheegay dawaafka haduu kugu adkaado sidoo kale wuxuu u dib dhici karaa maalmaha dambe iyadana waa la dawaafi karaa dayib hadii dawaafku dib dhacayna maxaa la dib dhacay sacyigiina waa la dib dhacay soo saasma laana waxa la rabaa in dawaafku uu ka hormaro sacyiga safiya marwa dhexdooda marka kuwaasi way dib dhici karaan laakiin maalinka tobnaad waa inaad ku taagsato ugu yaraan inaad jamradana tuurato timahana xiirato ama gaabsato kuwa kale laakiin way dib dhici karayaan sida macnaha in badan culimadu qabaan طيب inta markaad sameeyso waxa ku laaban maalinkii tobnaad shaqadiisa waa dhamaatay xajkaagi waxa ku laaban maalinka 11aad iyo maalinka 12aad oo laazim ah iyo maalinka 13aad oo khiyaar haysato maalmaha maxaa la qabanaya maalmaha mina lagu laabanaya habeenadeeda mina la baryaya maalinta gelinkeeda la iska joogaya marka qorraxdu ay xilliga duhurka la gaaro qorraxdu zuusho oo kala barka ay ka dhaqaaqdo oo xilliga duhurka la joogo laga bilaabo ayaa marka waxa la tuuranayaa saddexdii meelood ee isku xigtay ee jamro Soomeena dhan waa saddex meelood oo midda yar midda dhexe iyo midda weyn baa la dhahaa maalinka 11aad duurka wixii ka dambeeya kama hormarin karto duurka ka hor lama tuurto habeenka waad iska joogi waad iska bari gelinka hore waad iska joogi duurka marka la gaaro waad dhaqaaqaysaa waxaad qaadanaysaa ugu yaraan 22 dhagax maxaa laga rabaa midano 7 iyo midano 7 iyo midaasoo 7 meeqa way 22 dhagax baa laga rabaa waxoogaa ihtiyaad iyo taxadarna ku sii darso maxaa dhici karta meesha cidhiidhiga markaad wax tuurtuuraysa inay qaar ka daataan Sooma marka qaar waxoogaa haday wax ka daataan in case iska sii qaado waxaad ka bilaabaysaa marka ama duur kadib tag ama casar kadib tag ama habeenkii tuuro qorraxdu marka dhacdo kadib ilaa waagu intuu ka bariyo waa la tuuran karaa waxa laga bilaabayaa marka midda u yar ee u xigta dhanka mina markaad masaajidka weyn ee mina ka timaado dhanka Musdalifiya masaajidka weyn ka timaado midda kuugu soo horeysa ayaa waxa la yiraahdaa midda ugu yar taasaad ka bilaabaysaa taa markaad ka bilowdo sidii baa waxaad uga maraysaa dhanka bidixda sida nabiga sallallahu alayhi wasallam sida sunnada waa inaad bidixda ka marto oo isku aadisood qaabisho kacbaduna ay ka qabato iyo makka dhanka bidixda minana ay ka qabato iyo masaajidkeedii dhanka midigta dhankaasaad ka galaysaa sida sunnada toddobadii dhagax baad ku tuuraysaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar toddobada markaad ku dhamayso yaad ka soo baxaysaa wax yar baad dhinaca u durkaysaayo ciriirigaad ka dhex baxaysa xaqaad u yar durkaysaa qibladaad u jeedsanaysa meeshaasaad ku ducaysanaysa dad gacmaha taagto ilaahay waxaad rabtaad weydiisanaysa markaad ducadaada dhamaysato kadib waa tagi tii ku xigtay baad iyadana sidii oo kale dhankii intaad ka soo gasho baad toddobadeedii dhagaxyadana siinaysa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku dhamaynaysa markaad dhamayso baad durkaysaa haddana meeshaas gadaal baad u yara bixi dhanka bidixda meeshaasaad haddana ku ducaysanaysaa intaad qiblada u jeesato waad ka soconaysaa markaad ducadaada dhamaysato tii u dambeysay ayaa tagaysaa iyadana sidoo kale aad ku samaynaysaa ogow marka ku baraarug taas u dambaysa waa tii aad tuuratay maalinkii tobnaad waana midda xagga maka ugu xigta ayada maalinka ugu dambayso la tuuran toddobadeedii dhagax baad ku tuuri marka tuurta kadibna ayada agteeda lama istaago lagumana ducaysto faant labada hore marka tuurato agtooda lagu ducaystaa laakiin taa u dambaysay ugu weyn ee maka xageeda ugu xigta ayada marka tuurataba waa laga dhaqaaqaa kuma ducaysan agteeda nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinka intaasaad sameyn habeenka 12aad ku soo galay waad iska baryay haddana maalinka 12aad sidii oo kale gelinka dambe marka la gaaro duurka kadib ayaad sidii oo kale saddexdoodiiba sidii oo kale ku sameynay midda ugu horeysa aad ka bilaabita ugu yar
toddobada dhagax baad ku tuuri agteedaad ku ducaysan tii ku xigtay baad imaanay u dhaxaysay toddobadeeda dhagax baad ku tuuri waad ka durki waad ku ducaysan ducada kadib waad tagi tii u dambaysay baad toddobadeeda ku tuuri markaas waad ka socon maalinkaad joogto waa maalinkee marka maalinkii 12aad gelinkiisa dambaad joogtaa 12aad gelinkiisa dambaad joogtaa maalinka markaad tuurashada dhammaysato laba mid marka haddaad rabto inaad degdegto iyo inaad rabto inaad daahdo haddaad rabto inaad degdegto intaa kadib aad dhaqaaqdo intayna qorraxdu kuu dhicin bax oo mina ka bax alaabtaadii waxaaga qaado u guur hoteelkaad deganayd qorraxdu iyana mina kuugu dhicin waad heli kartaa faman tacajjala fii yawmayni falaa isma calayh labadaa beri ruuxi intuu tuurto degdega dembi ma leh waman ta'akhara falaa isma calayh ruuxii dib dhaca oo maalinka 13aad ku darsadana isagana dembi ma leh haddaad habeenkaa barido ood mina barido 13aadku soo galayo maalinka 13aad tuurashada haddana waa inaad samayso sidii baanad u tuuranaysaa saddexdooda haddaan soo sheegnayd u tuuran lahay horey ugu tuurateen soo sharaxnay baa u tuuranaysa maalinkaa 13aad haddaad dib dhacday ood tuurato hawshaadii waa dhammaatay marka haddaad degdegtayna ood maalinka 12aad ku dhammaysato tagtana hawshaadii waa dhammaatay soo ma acmaashaadii xajku waa ku idilta keliyata dadka xaajada leh danta leh ama xanuunsanaya ama shaqada haya مثلا masaalixda caamka ah ee waardiyayaasha xujayda u adeegaya inay habeenada baryaan waa laga cafinaa sida Abbaas ba nabigu uga cafiyay sallallahu alayhi wasallam habeenka meynada mina la joogo waa laga cafinaa tuurashada la tuuranayana waxay sameyn karaan labada bariba hal maalin bay wada tuuran karaan hal maalin bay isugu geyn karaan oo ay yaani wax weeyaan meesha 22 ay tuuran lahaayeen waxay tuuranayaan 42 ay tuuranayaan hal maalin kalena waa laga daynayaa dadkii xoolaha raaci jiray xoolaha la jiray waardiyaasha hadda lamida saalixda caamka dana caamka dadka haya dadka jirana xanuunsanaya dadka muxuu ahay culculus oo kale saasa loo sameyn karayaa macna tayib intaasi marka acmaashi xajka kuugu idil waxa ku laaban gurigaaga iska tagi magaalada iska joogi shoppingkaaga iska samayso masaajidka iyo salaadiisa ku dadaal masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam bal xaramka oo dhan masaajida ku yaala sida xooga badan salaadaad ku tukatay 10,000 waxaan dhihi lahaa 100,000 salaadeed 100,000 ajirkaad ka heli lahayd oo salaad meel kale aad ku tukatay ayaad ka helaysaa masaajidka xaramka weyn wuxuu fadli iyo ajir la dheer yahay masaajida kale xaramka ku yaala jamaacadiisa badan masaajidka mar walba jamaacadiisu badan tahayna ajirkiisu waa sii baday laakiin 100,000 ee ajirka masaajid kasto xaramka ku yaala waa laga helayaa sida xoog badan sharaajixa salaadaha ku dadaal masaajidka xaramka hore aad weyn hada tay karto waad iska joogaysaa markay noqoto inaad amba baxayso ayaad dawaafaysaa dawaafkana waa dawaafka sagootiga dawaafkaasi waa dawaafkii sagootiga nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahaa bixina ilaa aad cagta ugu dambaysa soo marisaan beedka markaad soo dawaafto waad amba baxaysaa marka inaad dib u seexato ama dib u sii joogto sax haddii inta dawaafka sagootiga samayso markaasi waxoogaa hawla ka laalaaban iyo yaani wax weey baabuurka idinka dib dhaco wax yar aad sii joogtaan saacado duruuf darteed dib male marka laakiin waxa la diiday inta dawaafto haddaad sii joogto oo barido haddana dawaaful wadaac haddana waad ku soo celin sagootiga waad ku soo celin dawaaful cidaaca markaad samayso gurigaagii nabad Allah kugu geeyo sidaasi ayaa marka acmaasha xajku ay noqonayaan kaliya waxaan doonayaa inaan ku daro inta hadda aan sharaxnay qaabkan u sharaxnay waa qaabka ugu fadli badan ee xajka loo guto oo ah umra madax banaan iyo xaj madax banaan oo tamattu aan ku sheegnay tayib dadka qaar kood waxa laga yaabaa culimadaaba isku khilaafsane inuu barababa xaj kaliya inuu guto muxuu sameeynaa marka waxay ku kala gadisan yihiin kaliya dhowr qodob sidaan soo sheegnay baa la sameyn markaad xaj kaliya wadato laakiin xarmashada way ku kala gadisan yihiin markaad xarmanaysay tamattuca maxaa soo tiri tamattuca umra soo xidhad Soomaal labayka umra hadaad xaj kaliya rabto labayka xajjan baad dhihi sooma labayka xajjan halka way ku kala gadisan yihiin waa mid labaad ruuxa xaj kaliya wata
markuu kacbada yimaado wuu dawaafi dawaafkiisaasna waxa la yiraahdaa dawaaful quduum mutamatticana dawaafkiisa waxa la yiraahdaa dawaaful umra marka soo timaado dawaafkiiba dawaafi waa kan soo sharaxnay labadii ragcadoodna waa tukan waa xaj kaliya hadaad wadato labada ragcadood marka tukato laba khiyaar baad leedahay inaad inta ku ekayso oo sacyiga aad sameynayso maalinka tobnaad aad u dib dhigato iyo inaad sacyiga labada burood dhexdooda aad iska sii hormariso dawaafkaaga hore markaad sameysaba aad sacyigana ku darto hadaad sidaas samayso maalinka tobnaad dawaafkiisa sacyigii ka dambayn lahaa adiga lagaama rabo sababtu maxay tahay laana sacyiga horeed samaysay markaad meesha timidba baa sacyigii xajkaaga sooma waa qodobka labaadi waxa weeye maadaama xaj kaliya aad wadato ma xalaaloobaysid ilaa aad gaadho maalinka tobnaad jamradana aad tuurato ma xalaaloobaysid maxaan ka wadnaa bimacnaa markaad xidhatay wixii xaraam ka noqday ku xalaaloobi maayaan labada go'baad ku taagnaan xataa 20 bari 30 bari 2 bilood inta xajka ka laaban maalinka tobnaad inta laga gaadhayo ma xalaaloobaysid maxaa yeelay xaj baad xidhatay xajkiina waa taagan yahay kama xalaaloobaysid ayadana way ku kala gedisan yihiin طيب waxa kale ku kala gedisan yihiin saan tilmaanayba xajka iyo umradaadii hal sacyi bay yeelanayaan oo ka safiya marwad dhexdooda waxa kale ku kala gedisan yihiin ruuxa xajka kaliya wata oo xaj kaliya u guntan yahay xoolo uu gowrac laga ma rabo soonna warkiisa iska bada ayadana way ku kala gedisan yihiin kana waa ruuxii xaj kaliya xajinay waxa yimid oo isagana aan ku daraya ruuxii xaj iyo umra isugu jirtay asaga waxay isku mid yihiin kan hadda soo sharaxnay ee xaj kaliya wati kaliya waxay ku kala gedisan yihiin labadoodu markuu soo xidhanayo bedelka kii hore uu yiri labayka hajjan kani wuxuu leeyahay labayka hajjan wa umra sooma labayka hajjan wa umra kadibna meeshuu iimaan dawaafku sameyn sacyiga haduu rabo uu ku daray haduu rabo uu dib dhigi acmaashi xajku guda gali xajka maalinka sideedaadna labadooda midna laga ma rabo inay xaj xidhaan maalinka sideedaad yaa xajka xidhanaya waa mutamattic bas laakiin labadoodu xajkoodu waa u xidhnaaba ayagu way uun soconayaan way dhaqaaqayaan mina un bay aadayaan laakiin xaj ay xidhaan loogama baahna xoolo ay qalaana qaarinka xajka iyo umradu isugu dhex jirto asaga xoolo uu qala laga raba oo waa mutamattic laakiin mufridka xajka kaliya wata asaga laga ma rabo ahkaamtaas marka ka dhaxaysa ay ku kala gedisan yihiin nooca ugu fadli badanna waa kii hore sharaxnay wax yar haduu waqtigu saamaxayo daqiiqad aan idin ku daro sidoo kale waxa ziyaarada Madiina la siyaaranayo ayada waa dhowr kelimo waa midda koobaad wadadu saacad ay fiirinaya laakiin darsi culus bay dhiibeen adiga hadii lagu yiraahdo yaani wax 3 xalqo 4 xalqo u baana hal xalqa ku soo ururi saacadana lagu qabto soo kadeed ma wadadadu marka ayaga sabiir raalli ahaada siyaarada waxaan dhihi lahaa orta Madiina in la siyaarto waa sunno masaajidka nabiga in la siyaartana waa sunno laakiin mid baan idinku baraarujinayaa siyaarada masaajidka nabiga iyo xajku iskuma qasbana laazim ma aha ruuxi xajiyay inuu Madiina tago laazim ma laakiin waa sunno ama xaj u tag ama si kala u tagay masaajidka nabiga inaad soo booqato taasi waxay meesha ka saaraysaa اعتقاد ay dadka qaar kood اعتقادsan yihiin oo dhahaya ruux ma ka yimid oo soo xajiyo iska soo noqday nabi maxamed waa gooyay ama waa caasi sax ma siyaaradu waa sunno labadooduna mutalaazimiin ma طيب markaad Madiina tagayso Madiina maxaad u tagaysaa qasadkaagu muxuu yahay niyadaadu maxay tahay ya ma qabriga nabiga u socota maya qabriga nabiga inta la niyeysto in loo safro waa khalad nabigaana sidaa yiri qubuurta looma safro siyaaradeeda laakiin waa inay niyadaadii qasadkaagu yahay waxaan ziyaaranayaa masaajidkii nabiga sooma masaajida loo safraa saddexda masjid baa ziyaaradooda loo safraa waa masjidkul xaraamka Makka ku yaala masaajidka nabiga Madiina ku yaala iyo
masaajidka saddexaad ee masjid al-aqsa oo bayt al-maqdis ku yaala ilaahay gacanta yahuudaha ka saaray saddexda masjid baa loo safraa marka waxaad u safraysaa niyad ah masaajidka nabiga siyaaro niyadaadu waa inay taa noqoto tayib meeshii baa tagtay masaajidkii haddaad tagto soo qabrigii nabiga kuma yaalo soo siyaaro markaa ujeedadaad u timid ma ahayn qabriga laakiin maxaad u timid masaajidkaad u timid laakiin meeshii haddaad timid soo siyaara qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam see loo siyaartaa meeshaad tegaysaa masaajidka dhexdiisu ku yaallaa dhinac buu kaga yaallaa meeshaad tegaysaa qabrigaad ku jeedsanaysaa xaggiisa qiblada wuu ka jeedaa waad ku jeedsanaysaa macnaa qibladaad gadaal marinaysaa waad ku jeedsanaysaa kadibna waad salaamaysaa assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calayka yaa abaa bakrin assalaamu calayka yaa cumar bas